بسم الله الرحمن الرحيم وكله هاي ولا عبد حفيد أبا ما سنتهاي وقت قاعد ما أنت إسيسي مقعي وعبد القادر محمد محمود كل مركز ترى هذا عبد القادر وكما عبد القادر وحكول الشيء مقالة كسمايو كسو برباري إلى دكس قرآن كيسة هوسة دكس سكول كيسة هوسة لحسارة وحنا قاعتي سكول كمحمد جامع waxaan u soo hayaan tagay waxbarashadeeda qaybta jaamacadda waxaan ka bilaaway wadanka Bangladesh Faculty of Electrical Telecommunication Engineering alxamdulillah 4 sano kadib jaamacaddu hadda way dhamaatay taariikhdeedii kooban waa tahay wallahi waa runta Bangladesh waxa weeye qofkii meel uu ku cusub yimaado waa qasab waxyaalo oo dhacdooyin cusub iyo xolo kulmaya iyo waxyaalo hor leh waxyaalaha la yaabka badnaa aniga aan la kulmay wadankan Bangladesh fast waxa weeye kulay Soomaali waan naqaana dad yar aan nahay waxa weeye wadadan hadda maanta daamarto Soomaali marka joogto hal qof ama laba qof inuu ka soo horbax dhici karto wadankan Bangladesh waxa ugu yaab badnaa meesha istaag orta ma arkiis meel dad la'aan بين دد الآن ما أركيسي مالين بقى سوق بحي يعني قلا أصحابنا هاي سوق كسو أديكن عيد وحبا سود بي وحاد عادي وروح كام قل عن سنة بسسك أمام لا موتوين وحا سارنتها جام قل أني جي كام قريب وأني جي كام قريب دقائق واي وحاول وحين قلت إن عريري حكس إن ماشي كده عدو محوها مركز صح حسوسي له هذا ثاني ولا جابا qof socdo jaam galay marka waxa aad bay u tiro badan tahay laakiin waxa weey waa xabada ka soo qabsan la waxyaalaha aan la yaab ku badnaa kala kulmay muxuu ahay Bangladesh wallahi adaa tiraado talooyinkii aad siin lahayd yaani dadka aad ku cusub dadka aad iimaanaya wadanka Bangladesh kulli waxa weey waxa muhiim ah saddex waxyaalood in maskaxda ku hayaan saddex talo aan siin lahay koow midda ugu weyn aan siinayo waxay tahay qof walba muslim laga baahan yahay waxa weeye inay Ilaahay ka cabsadaan meel walba ay joogaan iyo waqti walba wax walba ay qabanayaan kullama Ilaahayga ku xirnaato kullama wax walba ku fududaanaa adduunyada waxa weeye waxbarashada wax kaga horeyso inay Ilaahay ku xirnaato taas aan siin lahayn salaadooda oogaan waxa weeye dhalinyaro leeyahay wadan waxaan soo galnay qurba marka inay wadankaanu ka duwan yahay wadamada kale oo waxaan ognahay wadankan inuu masaajid badan leeyahay wadanka 183 muslim yahay midda koowaad aan siin lahaa waa midaas midda labaad aan siinayo waxa weeye in waxbarashadii saacadaha badan u soo safreen Soomaaliya BD ugu yaraan waa 12 saac 13 saac meelaas 13 saacadood soo safartay waalidka qarashka kugu bixinayo waxa weeye inaad kamir dhaliso waxaad u imaato wadankaani aad muxuu ahaay adoo dhinac kale eegin inaad kaga faa'iido inaad kaliya ku ekaanin jaamacadda waxa jira wadanka koorsooyin badan la bixiyo inaad koorsooyinkaas kaga faa'iideysato oo muxuu ahaay aad wax badan sameeyso midda saddexaad aan kugu la talin lahaa dadkan waxa weey in caafimaadkooda ka fikiraan waxa ognahay Bangladesh qofka laba waxyaalood wax saddexaad ma qabto uu soo kaca jaamacaddu aada xaafadiisa ku laabta u saxda waxa cuntaa waa saxta marka caafimaadku waa muhiim in ugu yaraan jiimka aado meel ku badal ugu aado in aad caafimaadkaaga ka fikirto si nafsadaada u sii jirto caafimaadkaana u ilaaliso saddexdaas tala aan kula talin lahay walaalaha Bangladesh ku sugan walaala qurbo walba ay ku sugan yihiin diyaar baa والله بوقت أخرية كل وحوي وجران بوقت بدنا أخرية أما كو علمي إنجنيير لما ذاك هذا يو واحد بارمتي أدينا هاتو أما كو تاريخي هاتو لكيس أني بوك سامين أقول شيء أما كتب هذا سامين أقول شيء محو هاي أحاديث مركز لقى هذا كتب كان أما صور من حياة صحابة صور من حياة الصحابة أني وحوي وحيالها تاريخ وحيالها يقول تاريخ وحي يقول تو سامين يقول بي محايا لي وحد أركيسا صحابي مركز صور قال هاي مسلم لماذا سيفو كسوقاتي
ilaahay dartiis u haajiray ilaahay dartiis u shahiiday waxa weeye waxyaalaha saameynta u yeelay qof dhan hadda maanta inaad baxdo meel raacdo hantidaada ku bixiso diinta islaamka ku shahiido waxa weeye waa wax iska adag marka subar maxay asxaabta kitaabada muxuu ahaa xadiista saameyn ifba madaxweyne hadaan noqdo anigu ma jirina siyaasadda inaan waxa gala laakiin haday dhacdo inaan madaxweyne noqdo kulli waxa weeye waxaan qaban lahaa aniga rajeen lahaa inaan yaani dalka ku soo daro kulli Soomaaliya waan naqaanaa in baabaasan tahay oo xaq dhan waliba aniga waxaan ka dhisi lahaa ama muxuu ahaa noqon lahaa targetka koowaad waxbarashada in bulshada markay wax barato adduunyada la jaan qaadi kartaa wax soo bedeli kartaa in waxbarashada free in lagu bixiyo oo yaani xagga dugsiyooyinka hoose dhexe sare iyo xagga jaamacadaha in qodobka labaad aan tigsan lahaa in caafimaadka inuu noqdo free waayo boqolaal baad caafimaad darro u dhimata boqolaal baa caafimaad darro la jiifta oo wax laga qabo aan la asaneyn marka caafimaadkana free ugu dhigi lahay amniga waxa bulshada markay waxbarashada caafimaadka hesho waxa ka horeysa amni inay hesho amnigeena waa muxuu ahaa aad baan ugu shaqeyn lahaa hadaan noqdo madaxweyne hadan iguma jirtiin madaxweyne noqday waxa weeye su'aashaas qeexid nafta waxa fiicnaa qof kale in la dhaho wax ku qeex laakiin aan hadda soo koobo ani waxaan ahay qof bulshada ixtiraama iigin ixtiraamaan qof jecel wax qabadka ma jeceli in aan jibso waxaan jeclaa wax qabad qof tanaazul badan shayga hadii wax la isku qabsado ama waxay noqotay in qofku u tanaazulaan jecel hobbigaygu badan yahay laakiinse waxaan jeclaa mar walba firaaqada ahay oo jeclahay inaan sameeyo kubadda inaan ciyaaro ama inaan yaani team aado wallahi nolosha buug laga soo dhigo waxa weeye waxa u bixin lahay waayo badan oo bixin lahay waayo way badan ta dunyada mar bus wax dhinac waxba ku soo faas waxa farxad soo kacaysa waxa wax kale soo kacaysa magacaan la jeclaan lahay waayo badan oo bixin lahay dunyada talada ugu wanaagsan qof isiyo wuxuu ahaay anoo iskuulkayga dugsiga sare marka dhameeyay igu nin jirin inaan jaamacad bilaabo raba inaan magaaladii ka xamaasho muxuu ahaay in baa wuxuu igu la taliyay kulama heer jaamacad gaartid kulama qiimo value yeelanayso marka talada igu fiicneed oo la isii aan qaatay taladaas aadin saaxiibkay ah inuu igu yiraahdo wax baro hadii dictator ma jecel dictator inaan noqdo laakiin hadii la dhigi lahaa dictator noqo waxa dhahdo bay dadka ku shaqeynayaan waxaan dhigi lahaa waxa waajib ku ah 5 salaad inaad tukataan adduunka hadii la yiraahdo magaalo ku noolo magaalada ugu jeceshay wallahi Paris Soomaaliya jecelahay Kismaayo Paris Soomaaliya ina ku noolaado waxa weeye waa Kismaayo waxay dhaamo laba wallahi Bangladesh inta joogay kulli waxa weeye waa wax lagu safraa gobol ugu qiimo badan Bangladesh markii la joogo waxaan ila hadartaan jeclaa mar walba oo fasax ah helina aadan Koosbasar meel aan xeebta ugu dheer adduunka aan jeclaa mar walba inaan ku laabtay Koosbasar ciyaaraha mar walba waxa dadka yaqaanaan waxa aad aan mar walba u ciyaaraan jeclaa waxa kubadda wallahi waxaan taageeraa Barcelona xaq Spanish xaga ka taageeraa markii Premier League la yiraahdo waxaan taageeraa Chelsea qaran waa isku hayaayo waayo Messi aad u jecelahay waxa Argentina wallahi kubad markii la booska aniga dheelay horta waxa waa marba waxa isku aqaan inahay kiyab Ingiriis oo boos walba la istaajin karo laakiin boosaska ku fiican waxa dhaxdaas 6 8 ila 10 magacayga Cabdiqaadir waxa waa ina bedel mar wala hadii la dhila jaanis ah sidana bedel waxa aad u taageeri jir waaga yaraan jecel Abu Dujaan in la yiraahdo saxaabi muxuu ahaay qaswatul Uhud oo fagaaraha wax badan ka soo muujiyay aan jecelahay magacaas ina qaat Abu Dujaan in la yiraahdo waxa marka hore mahad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala noo ogolaaday ina maanta muxuu barnaamijka soo jeedino
waxaa kale oo u mahadcelinaya walaalkay injineer cabdixafiid fursaddan i siiyey inaan muxuu ahaa ku soo bandhigo iyo waxyaalaha hamigeyga iyo waxyaalaha jecelahay waxyaalaha sameeyo aad baa u mahadsan tahay fursaddan waayaha waxaan rajeynayaa inay sii socoto dad badan iga dambeeyaan aad baa u mahadsantahay